socotaan waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Imikana Muqdisho. Axmed Aadan Xaashi waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho oo bulshada ka wacyigeliyo dhibaatada tahriibku leeyahay iyo inuu qof kasta markaa dalkiisa uu ku kalsoonaado. Wuxuuna si gaar ah u wacyigeliyaa dhalinyarada isagoo u sheega in aysan naftooda haligin si ay u gaadhaan Yurub iyo wadamo kale. wuxuuna wacyigelintiisa u adeegsadaa cod baahiyaha iyo weliba sawirro muujinaya khatarta uu tahriibku leeyahay. Axmed Aadan Xaashi oo u warramay Samiir Cabdullaahi Jaamac waxay ugu horreyn weydiisay waxaa ku dhaliyay barnaamijkani wacyigelinta tahriibka. barnaamijkan waxaa igu dhaliyey hadda ka horaan anigana sadeeda halis geliyey oo aan tahriibay sidaa daraaddeed waxaan la kulmay xanuun fara badan uu leeyahay tahriibka sacuudi arabiya ama tahriibay marka caqabada la kulmay awgeed markaan dalka dib ugu soo noqdo waxaan sameeyey barnaamij wacyigelin ah anigoo marka meelo qaar oo degmooyinka aan tagay aan leeyahay bal dhalinyarada aan la kulmo aan u bandhigo taariikhka dhibkiisa marka muddo markaan tagay barnaamijkan waxaan awoodi waayey in aan sii wado sababta culeys soo koray awgeed markii dambe sheekadeeda waxay isku bedeshay inaan tago Hargeysa oo qaab noocan oo kale aan u sameeyo oo boorar dejin aan sameeyo kadibna Hargeysa markaa aaday waxaan haddana kasii dareemay in hawshan qof garab igu siisa aysan jirin nin walba oo isleeyahay bal wax raadiya wax dhaqaalaha barnaamijkan aniga marka uguma talagelin inaan dhaqaale ka helo laakiin waxaan ugu talagalay inaan bulshada wacyigelin ilaahay dartiisa ugu sameeyo bulshada dhibka aniga iga soo gaaray baan rabaa inaan tusiyo dalkoodana inay aaminaan aan dhalinyaro mar walba ku dhiirigeliyaa sidaa daraaddeed Hargeysaan kasoo tagay xamaraan imid xamar markaa imidna waxaan tiri bal hotel xalfad lagu qabto waxa ka qurux badan inaad microphone qaadatid microphonekaasina wuxuu kusii qurux baday adoon baabuur u raacin bajaajna aada kiraysan microphonekaaga qabso sawirkaaga qaado wadooyinka mar qof kastoo dhalinyaraha ku ag yimaado u sheeg. Axmed markii aad arrintan bilowday maxay tahay falcelinta aad bulshada kala kulantay? wallahi aad baa u mahadsan tahay aniga bulshada markaan hawshan aan bilaabay oo wadooyinka Muqdisho aan maraayo muddo xoogaa baan wadaa barnaamijkan wada marista ah marka waxaan la kulmay dhiirigelin laakiin inkastoo waxyaalaha adeegsana ay tahay microphone codkayga kasoo baxayo oo aniga aan isticmaalayo luuqadayda hadalkayga balse waxaan kala isticmaalaya waa sawirkaas waxaa ku dhegsan qofkii oo tahriibayo meedad meel daadsan hal ilo ooynayso wax sawir baa meesha ku yaallo marka qofka marka hadalkayga arko isha ku dhifanayo sawirka aan wato qaar baa ku farxaya qaar baa inuu sii dhiirigelinaya laakiin caqabadaha inta badan aan la kulmo waxaa kamid ah inaanan heli karin sawirada aan isticmaalayo sababta ayagana waa qarash marka aniga micnaha ma awoodo meel aan ka helana ma jirto laakiin dad baa iga saacido markaan sidaan oo kale maalmahan ku dhaqaaqaayo walaal. marka ma isleedahay tallaabadan adigu hadda aad wado ee aad dhalinyarta ku wacyigelinayso wax badan ayay ka bedeli kartaa dhalinyartan ku dhiiran inay tahriibaan? wallahi waxbay ka bedeli kartaa hadda ka hor xitaa waxaan dareemayaa in hakad uu galay markaan barnaamijka sameynayo xitaa waxaan jirtay banaanka layidhi aarmaata hooyo uu heestaasi ka matelay oo hadda ka hor baraha bulshada lasoo geliyay doon ka dhici jirta Masar iyo Talyaaniga hooyo ooynaysa haddaad aragteen bulshada ay daawatay hooyo waxaa jirta ooynaysa wiil gabar iyo ilmo yar ayay u tahay ka dhimatay ayaan aniga soo bandhigay marka saameyn badan ayay igu yeelatay inaan micnaha garabka sii helo barnaamijkan habeen maalin kama seexdo wallahi dalkoomu sheegay mar walbo qof kasta la kulma waxaan kala hadlaa warnimo wadankiina hala aamino dalkiina laakiin waxaan codsanayaa in hawshan aan wado garab lagu siiyo. dhalinyarta tahriibaysa qaarkood mowqifkooda ugu dambeeyay ayay ka joogtaa in ay tahriibaan ama meesha ay rabaan ay gaaraan marka ma isleedahay wacyigelintaada ayuu qofka oga hari karaa go-aankii tahriibka ahaa ee uu qaatay? absolutely sababta waxa uga hari karaa waxay tahay anigii baa dhibka soo arkay bini'aadanka sideeda markuu urudku dhasho wuxuu ku daydaa ilmaha kale faqiirka ka weyn oo ku daydo soo sameeyo fiiriya marka sidoo bini'aadanka waa ku dayasho waxaan aaminsanahay in dhalinyaro fara badan horena ay ugu daydeen haddana aan jeclahay inay ugu sii dayan doonaan marka inaan aniga usii noqdo horjooge oo barnaamijkan aan wado inay ka waantoobi karaan ayaan aaminsanahay walow dad ay jiraan iga hor imaan kara laakiin waxaan leeyahay dalkiin hala aamino oo waxaad baratay wadanka waxa loogu qabto. Samiira Cabdullaahi Jaamac aad bay u mahadsan tahay. shir gaar ah oo ay yeesheen wadamo